السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال soo dhawaada waxaan wareys la yeelanay shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga iyagoo ay ka hadleen iyagoo ka hadlay arinta badda Soomaaliya iyo Kenya hadaladoodina waxa kamid ahaa oo ay sheegeen in dawladda Kenya ay farigelin xun ay ku hayso dalka Soomaaliya balse haatee markii ugu horeysay ay farigelin noocan ay la su'aado dhulka iyo badda Soomaaliyeed dadweynaha ku nool dalka Turkiga ayaa dareenkooda iyo fikradooda ka dhiibtay waxayna cadeeyeen mowqifka ah in badda ay Soomaaliya leedahay Kenya ay wax badan ku waay doonto farigelinta badda Soomaaliya meel laga soo dajisto arinta Kenya hadaladoodina waxa kamid ahaa daawadayaal sida tan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا محمد وحوي anigoo la yiraahdo Xaaji Yaasiin Maxamed Shariif oo ah midowga musharaxiinta xildhibaanada soo socda waxaan u leenahay oo aan aad u cambaaraynaa kuwa badda gatay kuwa dadka gatay kuwa raba hadda inay qaraabtaan marka Kenya waa khaldan tahay oo waxaan u leenahay Kenya shaydaanka iska naar xogaa yar qaxootiyaad haysid hanugu baayicina dalka iyaga ku baayicina nooga soo eri maanta annaka ma garanaysaa habaysan karna dadka bismillahir rahmaan waxaanu leenahay war isku duubnimo loo baahan yahay war wax badan oo inaga maqan baa jira badan hadaynu ba ogaanay bil xitaa bariga in ogaano bariga qudhiisa waa la yara jafjafay waan u maleynayaa magacaygu Cismaan Ibraahim Ducaale hadaan shacabka Soomaaliyeed waxaan aad u cambaaraynaa kuwa badeeda iibsaday iyo kuwa nagu haystaba aad baan u cambaaraynaa waan ka soo horjeednaa badeedu wax la qaadan kara maaha wax aanu yeelayna maaha meel kasto aanu joogno waanu ka soo horjeednaa waanu cambaaraynaa kuwa iibsaday iyo kuwa hadda damaaciga nagu haya ee badeeda doonaya kuwa ka hawlgalay ee ka shaqeynaya aad uga hawshan hadda jooga maxkamadda jooga iyo intayada Soomaaliya joogta ama Turkiga joogta meel kasta aan kala joogno Soomaali meel joogtaba waa mid diyaar waxaan u nahay inaanu badayada difaacano iyo dhulka yagaba baanu diyaar u nahay magacaygu Axmed Cabdiraxmaan ana ku bilaabay magacayga Axmed Cabdiraxmaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dawladda Soomaaliyeed guusha iyo qadiyadeeda ay meel iska taagtay badda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay jabka soo gaaray Kenya guuldarrada ay wajahday markay ogaatay inaysan meesha wax guul kale helin inay iska baxay dacwadii badda halka guuldarro aad u weyn baa Kenya ka soo gaadhay shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeeynaa guul inay gaari doonaan insha Allah ta'ala Kenya ka guuleysan doono waxaan leenahay sangaduudida awal baad nagu soo duusheen waan idin ogeyn qadiyadiina maamul goboleedyada aad marba qayb lacagta soo siinayeen aad nagu soo direyseen markaad ogaateen in wax guul helaynin inaad maanta dacwadii badda iskaga baxdeen magacaygu waa Zakariya Cabdiraxmaan Ibraahim waxaan joogaa dalka Turkiga magaalada Ankara waxaad nala wadaagtaa aragtidaas ku aadan dacwadda badda ee Soomaaliya sidee aragtaa wallahi waxaan rajeynayaa inay guul ku dhamaato guuleeno aw dhownahay ileen hadeeba ka bixin iyaga maxal lahaa wixii ay wateen inay ka soo qayb galeen maanta waxaan rajeynayaa inay guul kaga keenno meeshaas insha Allah billahi kariim magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud waxaan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhibto arinta badda ay isku haystaan dawladda Soomaaliya iyo dalka Kenya waxaan guul u rajeynayaa maanta shacabka Soomaaliyeed maadaama ay maanta tahay maalintii ugu dambeysay ee dacwadda badda ee maxkamadda Hague ay tahay marka qof kasta oo Soomaaliya maanta waxaan filayaa inuu dareemayo farxad iyo guul iyo reereyn waxaan u rajeynayaa inay ummadda Soomaaliyeed guushu raaci doonto qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeena dalka iyo dadka uu difaaci doona waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto oo aan shacabka Soomaaliyeed u sheego faragelinta ay ku haysay dalka Kenya gudaha dalka Soomaaliya in ay Kenya wax badan ku waayay doonto sababtoo ah Kenya waxay ku waayay doontaa arrimo dhaqaale waxay ku waayay doontaa arrimo diblomaasiyadeed waxay ku waayay doontaa arrimo siyaasadeed Kenya arintii ay ku jirtay faragelinta dalka Soomaaliya waxyaalo badan baa uga xumaaday dhaqaale badan bay ku weyday oo qaadkii baa la joojiyay dhinaca siyaasadda saameyn weyn ayay ku yeelatay oo adduunka oo dhan ciriiri badan ayay ka dareentay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa faragelinta ay Kenya ku hayso dalka Soomaaliya inay ku waayi doonto dhaqaalo iyo diblomaasiyad iyo siyaasad iyo horumar fara badan
Kenya iyo Soomaaliya waa laba wadan oo darisa waa laba wadan oo walaala waa laba wadan oo Afrika waa laba wadan oo neighborhoodisa wax badan baa ka dhaxeeya dad badan oo shacab oo Soomaaliyeed oo muwaadiniin ayaa ku nool gudaha dalka Kenya dad badan oo Kenyaati ayaa ku nool gudaha dalka Soomaaliya sida darteed saameyn badan ayaa khilaafka badda iyo faragelinta ay Kenya iyo Soomaaliya ku hayso ayay ku yeelatay dadka shacabka waxa ay siyaasadda cakiran ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ku yeelatay dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa saameyn fara badan sida darteed laakiin markasta shacabka Soomaaliyeed waxa rabaa inaan u sheego inay Kenya ku waayi doonto arrimo siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyadda haday tahay arrimaha igad haday tahay international community-ga haday tahay diblomaasiyadda haday tahay dhaqaalaha wax badan ayay Kenya ku waayi doontaa marka dadka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay faragelintii ay Kenya ku hayso Soomaaliya ay Kenya ka qaaday qasaaro fara badan magacaygu waa Maxamed Cabdi Xirsi waxaan u sheegayaa dawladda Kenya inaysan ahayn badayadu iib inaysan ahayn bad lagu qaadan karayo damac inaysan ahayn wax iibsan karayaan dhowr qof waa bad u dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo sheegayaa in badayadu aysan ahayn bad ciyaar lagu qaadan karayo inta qof Soomaaliyeed joogana aan la qaadan karin damaca Kenya waan ka daragsanahay kaliya maanta waxay taagantahay bad bari ka maalin waxay nagu qabsan doonaan dhulkeena marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan inay ka dhiidhiyaan oo ka diriraan badooda oo ay dhacsadaan maanta waxay taagantahay inay nagu qabsadaan badeena barina waxay nagu qabsan doonaan dhulkeena dhulkaygana dhammaan waan difaacanayna sidii horeba daawade haddii aadan horay aadan nooga mid ahayn please subscribe share and like gambaleelkana furo si wararka ugu dambeeya markasta aanu soo gelino ay kugu soo dhacaan daawade aad nala socotid haddaa hore nala joogtayna like iyo share